نبي صلى الله عليه وسلم في حياته ومماته وإن الله شقينيا وقرمنيا عدة علب وقرمنيا قصيبة واحد أو لبنان تكونفرات كدعضي يضرب للشدي نبي قال له دبالدقي هبين maalinimo ayaa inan qabiil meesha digi jiray qadaasiinta la oranayay ba xabad seeraarta aba ku dhacday madaxa kaga dhacday inan yar ayaa xabad madaxa kaga dhacday qabiilka qadaasiinta leeyada kamida oo iyadoo aan islaam ahayn qabiilkaasna islaamkoodu uu yaraa dhakhtar baa loola cararay inantii loo daweeyo xabadahan waxaan xabadii loogu dabaaldegay nabiga dhalashadiisa sallallahu alayhi wasallam inantii dhaqaatiirtii way u taagweyday بيروت بان لكيناي دقاتير جامعات wax ka dhigi jiray oo dhaqaatiir caalami ah ayaa inantii loo keenay inay wax ka qabtaan markii dhaqaatiirtii kale private-ka iyo kuwii kale waxba ka qaban waayeen oo Mareykan dhaqaatiir Mareykan oo jaamacadaha wax ka dhigi jiray iyagu aanaba caadi ahayn si aan caadayna wax u garanay waqtiga iyada baa loo keenay inantii waxba way ka qaban waayeen way ka qoosteen way ka gacmo taagteen mid kamid ah oo dhididku hooreeyo baa ka soo baxay qolkii inantii hooyadeedna dibadii taaganta wuxuu ugu yimi inuu yiraahdo inantaadi kaalayo si eeg daymadii ugu dambeysay nabarkii waxba waa laga qaban waayay waa la daweyn kari waayay dhiigii waa ka soconaya wax yar bay si noolaanaysaa kaalayo inantaadi daymadii ugu dambeysay si arag Allahu akbar xaalad markay barta mareysay hooyadii af laba daan bay qaadashay waxay ku leedahay nabiga sallallahu alayhi wasallam iyadoo la hadlaysa ayna anta ya muhammad nabi muhammad oo kumee ya إن المسلمون مسلمينتي أي قتلوا ابنتي إن أنت يدي لي ليحتفلوا بولادتك أيقوا على شد هذه الدبالدقية كمان نبي محمد نبي مسلمين تو أي شيء جنيين إنه نبي جودي هاي وكمه يا وما حي مدة عضن إيو دتك كود الدبالدقية ده حفظها سير ارتدى دتك وما حي أرنكي بيدو لا تعجب سنته هو يواد قرنا يساع المهدي ده وعيه حالة أي كتشرته إلهي مباقرن كره isla daqiiqadii gudaheedii hooyadii soo dhaqaaqay albaabkii soo dhaqaaqday ee furtay oo dhaqaatiirtii warkaaba ay siiyeen ah inantaadii deemada ugu dambeysay si arag waxba waan ka qaban weynay ay waxay maqashay inanteedii oo hadlayso leh markii albaabka ka soo gashay hooyadii hooyo albaabka xidh hooyo ha u deynin inuu baxo Allahu akbar hooyadii waxay isweydiisay su'aalo dhowr ah war inantii soo tiila lahaa way ka sii diisay iyo waqtigii badan ma hayso oo way dhaqaatiirtu waxba way ka qabanayso tan hadlaysa muxuu arrinkan yahay waxay kale isweydiisay yey leedahay albaabka inoo xidh yey leedahay ha sii deyn hooyadii arrinkii isweydiinaysa waxay hooyadii ku jawaabtay hooyo yaan qabtaa hooyo albaabka yaan inoogu xidhaa hooyo yaan sii deyn maxaa siya waxay tiri innahu nabiyullah hooyo waa nabigi ilaahay innahu muhammadun rasuulullah والنبي محمد والرسول كإلهي قصدنا واحد ردونان حقي كل عضي قرمي عضي عالم كي يورك إيه تاريخ ذا كوضع إيجا كل سجال بقول صدق يكتب كي بين عضي والنبي صلى الله عليه وسلم كل ميلادي يقولي كل سجال بقول صدق يكتب كي ميلادي إيه كل اللي جت شو قبل تجيب كذا بقى سجاش سنة واحد كيا أيه النبي كن أفر بقول يوم أنت أين قسم مكان يا صلى الله عليه وسلم أيها قرمنية أو إن أنت يا الله نبي إلهي ويا رسولك إلهي هو الباب كي نحر يناقب هو يدبت الهية ونبي إلهي بوها وإيمي قعنت أي مدح يجمري ذهب الجرح والدم ذهب الدم والجرح راوعي ليجي ويتجان ويستاجين نبي إلهي ويا يناقب اللهم صل وسلم وبارك الله قصنا فكسر أميري إن شاء الله بشارة فكر عظيم هو يدي أفل بدأ بيدي وأشهدتي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله هو يدي واحد قلت أود نبي إلهي أود صلى الله عليه وسلم دقاتيرتي waxba ka qaban weyday gurmad ka dalbatay ilaahay ugu hiiliyay nabiga sallallahu alayhi wasallam Allahu akbar nabigi baa daweeyay nabigi baa dhakhtariyay sallallahu alayhi wasallam awoodda ilaahay buu ku daweeyay
qaar ma xoranayaan oo nabigii haba ka sii daayay caalam barsakh ba jooge sideebu awooda ugu daweyn karso wuxuu ugu daweyn karaa siin ilaahay siiyay sababta iyo musababka ayaa kala duwan sababta cidii doonta ayaa ilaahay soo dhaxmarin kara musababkuna waa ilaahay dhakhtar baad u tagaysaa idawee baad leedahay ma dhakhtar baa wax daweeya ilaahay baa wax daweeye dhakhtarka ilaahay baa ku soo dhaxmarinaya dawo ku siinaya markaas oo alla dawadii baa ku dawoobay war ma dawada ku daweysay misaha ilaahay baa ku daweeyay sabab uu kaaga dhigay sababtii ayaad waxaad moodaa dadku inay ku larayaan musababkii oo wuxuu Allah wuxuu yiri nabigi baa daweeyay nabigi baa dawadaas ka dhacday oo nabigu uu daweeyay dawadan baa adiga lagu daweysay ilaahay baa ficilkan xaqiiqi u lahayd majaaziyan cid buu ilaahay laakiin soo marinaya diyaaradahan iyo kaariyaashan iyo caalamkan aynu joognay tiknoolajiyadan ilaahay baa ahaysiiyay laakiin cid baa ilaahay sabab uga dhigay oo isku xidhxidhay Sooma adaba umurtu waxa weeyaan nabiga sallallahu alayhi wasallam dadkii waqtiga joogayna way wada rumeeyeen way wada ashaateen qabiilka qadaasiintii dhamaana sidii bay ku islaameen dhaqaatiirtii meesha joogay dhamaana way islaameen qisadaasi tabtaasay ahayd waxayna ka turjumaysaa in nabiga sallallahu alayhi wasallam gurmanayo shaqaynayo saacad kasta iyo laxda kasta isagiina nabigiina waa inoo tilmaamay dhacdooyinna waynu aragnaa cidii iimaan lena way rumaynaysaa dhacdo kasta oo dhacda oo quraanka ilaahay kaga waramay oo mucjiso ama karaamo ama arin weyna dadka qaar baa lahaa sidee ku dhici kartaa ee shaada qaar badanna way rumaynayeen marka inta rumaysa mucjisaadka iyo karaamaadka ee muuminiinta khaaliska ee dhabta ah ee aan beenine meel kasta isla soo qaluubin oo isla soo taagin waxba kama jiraan weeye ma dhici karto ya sida yeelin ilaahay haynaga dhigo inta nabigoodii raacda rumaysa Allah haynaga dhigo inta xaq garatay fahanteen raacda Allah haynaga dhigo inta xaasidnimo iyo buqdi iyo kanacayb nabi iyo mid awliyada iyo anbiyada aan u dafirin Allah haynaga dhigo intaana Allah inoo soo hanuuniyo kama maarana Allah inoo soo hanuuniyo حق الله وافجيو حق الله تصو نبي الله جعليسيو جعلك النبي كم غنى إلهي جعلك النبي هسيو أنت النبي جعل رعده الرميس الله ينقى وضدكم أمة محمد الله وقرقاره إسلامك الله قويه دولته الله ينو قويه دولته الله ينو بركيه أمير هذا يا مؤمنين إمامك الله ينو بركيه مضح هذا يمشي يا عقاش الله ينو بركيه صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأقول قولي هذا واستغفر الله العظيم.